la socotaan caawa waxaa magaalada Birmingham lagu qabtay xaflad lagu taageerayo run ahaantii Maxamed Shariif oo ah consulkii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee isku soo sharaxa in uu noqdo consular. waxaa ka soo qayb galay dadweyne Soomaaliyeed oo aad u fara badan. waxaa kaloo ka soo qayb galay culimada diinkii, aqoon-yahanadii, waxgaradkii iyo odayaashii magaalada. hadaladoodina waxaa ka mid ahaa gudayida walaalkeen Maxamed Shariif isku dayay aad baan ugu baahanahay waana arrin lagama maarmaana khayr suu sheegayna kulliga xarig mar waa noqon doontaa laakiin uu noo bilaabay walaalkeen hadduu guuleysto iyo hadduu se guuleysanba dariiq wanaagsan buu noo furay waana in aan ku dayano halkaas soo gaaray ee hadda laga sheekeynaya intuu wax soo batay ee haddana la sheegay intuu Soomaali ka gudbay dad kale inuu kaalmeynayay ma aha wax fudud ma aha wiilka Soomaalida meesha isugu timiday sidaynu u soo saari lahayn aynu falowgeed galno ilaahayna uu inala garab qaban haddii aan dadaalo oo aynu soconno waxaan filayaa inaynu guul ka gaadhayno hagar aynu ka baxno inagoo Soomaali ah oo walaala ah oo oday iyo habar iyo dhalinyaro iyo kuwii u dhaxeeyay inagoo iskaashanayna aynu orodno wiilka aynu gacan siino oo waxa uu doonayo aynu gaarsiinayno taasi waxa weeye yaa maali jiray kolkaynu xaqqa u soo ridno inana waynu la maalaynaa waynu la qaybsanaynaa markaas fadlan aan wax la qabanno hadii ilaahay waxaan rajeynayaa waayahan waa waayihii shariifyada magac shariif loo mayno walaalkeen aan soo saarno magaca Soomaalida ku soo saarno magaca dhalinyaro waan ku soo saarno ilaahay dartiisna aan ku soo saarno lafayna ku badbaaday dhiigana ku badbaaday ilmeena ku badbaaday magaalada aan tagana qiimo ku yeelanayna markaas raadada waxaan ugu dambeyntiina waxaa halkaa hadal ka soo jeediyay wiilkan dhalinyarada ah ee doonaya in uu isu soo sharaxo consularka magaalada Birmingham. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa hadda aan la hadlayo intaasoo boqol oo carruur oo Soomaaliyeed ayaa xabsida ku jiraan. why su'aashu why inaan usoo dhibka inta laga soo gaaro Soomaalida marka hadda insha Allah li doorto maxaan isku dayi doonaa inaan criminal justice systemka iyo xagga maanta carruuraha Soomaalida role model u noqdo. xusid mudan caaway in fact TV-ga ETN oo noo saamaxay walaalkoodna ku taageeray warbaahintan aad iyo aad ayaan maaragtay arrintaas uga mahadcelinaynaa. Maxamed Shariif sida la socotaan waa nin aqoon dheer u leh habka maamulka konsolada iyo wixii la mid ah. Maxamed Shariif waa ninka halkayga taagan caawa xafladana waxaa lagu qabtay Mubarak restaurant. Maxamed Shariif ku soo dhaweeyteen Maxamed Shariif waxaan la soconaa in aad ballanqaad badan aad u sameysay dadka Soomaalida ah si ay mataqaanaa uga soo bixi lahaayeen dhibaatooyinka haysta dhanka arrimaha bulshada. dhibaatooyinkaas aad jeceshahay in aad ka caawiso maxaa ka mid ah? one waa housing waxa ka maartay housing problem ka mid ah carruurteena Soomaaliyeed xaq ma laha waa la xiraa booliska xiraan xaq ma laha Soomaalida nahay arrinta kale oo inaan fuliyo waa recognition magaceena Soomaalida in loo ogaado oo laga ogaado wadanka oo the Somalis living in this country marka inaan Soomaalida u dadaalno xaqada soo bixino xaqa iyo codsiga Soomaalina codayno. waxyaabihii aad ballan qaaday Maxamed Shariif waxaa ka mid ahaa sida dhanka dhibaatooyinka Soomaalida ka haysta guryaha oo kale. arrin sidee ahaad wax uga qaban kartaa? housing problem ayaa ka mid ah guryaha horta waa dhibaatooyin badan ballan baan qaaday hadii codsi la siiyo oo aan ku guuleysano inaan ka hadlo oo maaragtay ka hadlo arrimaha housing ama guryaha xagga carruurta maaragtay loo xanaaneeyo xanaanaha carruurta xagga familiyada xagga caafimaadka xagga nolosha bulshada oo la dhoo social economic problems Soomaalida ay qaban inaan maaragtay ka taageero ka daawadayaal sida la socotaan Maxamed Shariif wuxuu noqday ninkii Soomaaliga ahaa ee ugu horeeyay run ahaantii ayna noqon doonto mid ay ku daydaan bulshada Soomaaliyeed ama carruurta wadamada Yurub ku dhalanaysa oo kale sida heerkaas oo kale ay uga soo gaari lahaayeen.
dad Soomaaliyeed oo tiro badan ayaa caawa ka soo qayb galay xafladan lagu taageerayo Maxamed Shariif iyo sidii uu uga mid noqon lahaa consularka dadka Soomaaliya dadka aan mikrofoonka dhex maray yaa qofkii ugu horeeyay oo su'aasha aan weydiiyay ayaa wuxuu ahaa adigoo magacaaga ku bilaabayaan walaal waan waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Faarax Qambi oo kolay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkii caawada isku yimid hal hadal baan leenahay yes we can aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay Maxamed Shariif inaan taageero aan u shaqeeyo ilaa uu ka soo baxayno voluntary aan u shaqeeyo aan u adeego ilaahay dartiisa ugu adeego Soomaalnimo ugu adeego ayaana diyaar u ahay aniga Maxamed Shariif horeyna waan u aqaanay oo nin saaxiibkay dhalinyaro youth workerna muddo badan Soomaali community caawinayay sidaas awgeed waxaan aaminsanahay taageersanahay Maxamed Shariif inuu musharax yahay aad iyo aadna mahad gaar waxaan u soo jeedinayaa TV-ga ETN oo especially ugu deeqay inay garab istaagaan Maxamed Shariif annaguna jaaliyadiisaan u dhannayn jaaliyadkii ka jiray West Midland waan taageersanahay inaan soo saarnana waan ku dadaalaynaa inuu miiska uu yimaado magaalada Birmingham maamulkeeda iyo administrationkeeda inuu ka qayb qaato waan ku dadaalaynaa idinkana mahad gaar TV-ga mahad gaaran u soo jeedinaynaa waliba deeqda iyo garab istaag aad garab istaagteen inaad waliba ku sii wadaan oo idin ka codsanayna aad iyo aad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Soomaalidii ka soo qayb gashay xafladii lagu taageerayay Maxamed Shariif oo ah kandidaadkii ugu horeeyay Soomaaliyeed Maxamed Ali Ahmed ETN TV Birmingham